bal ka waran haddii aad arki lahayd ama aad ku riyoon lahayd xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo uu weliba kuugu bishaareyn lahaa in aad gaarayso ilaa iyo masiixu dajaalka intuu soo baxayo, weliba uu talo iyo waano ku siiyo oo uu kuu sheego aayado quraanka ka mid ah in aad xifdiso si aad uga badbaado fitnadaas. haddaba qisadeena maanta waa qiso cajiib ah. daawasho wacan walaalaha quruxda badan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena, soo dhawaada walaalayaal, kusoo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan. alxamdulilaah, ilaahay oo adiga mahad iska leh na siiyey nimcooyin aan la tiro koobi karin oo dad badan oo inaga nala mid ah oo aan waxba dheereen ay haysanin. nimcadaasoo ay ugu horeyso nimcatul islaam iyo caafimaadka, iyo nimcooyinka aadna siisay oo aan la tiro koobi karin. alxamdulilaah, ilaahay oo noo ziyaaday intaan haysanna sii. intaa kadib walaalaha sharafta leh, sidii caadada inoo ahaydba aan isxasuusino in aan ku sallayno xabiibkeena Maxamed. allahumma salli calaa muxammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. intaa kadib walaalaha sharafta leh, maanta waxaan idin wadaa qisooyin cajiib ah kuwaasoo ku saabsan saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, gaar ahaan markii loo akhrinayo qaabkan allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammed. waa qaab gaaban, run ahaantiina faa'iido badan laga helay. qisooyinka aan idinla wadaagi doono maanta insha allah saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayay ku saabsan yihiin, gaar ahaan markii loo akhrinayo qaabkan allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammed. haddaba qisadeena maanta koowaad ee aan idinla wadaagayo waxay tahay, qisadan waxay ku dhacday wiilkan waxa uu yiri waxaan ahaa qof ay nolosha aad iyo aad uga adag tahay, laakiin wuxuu yiri mar walbo waxaan arki jiray oo aan dhageysan jiray dad ka hadlayo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo faa'iidada ay leedahay. wuxuu yiri waxa ay haystay culaysyo fara badan, mashaakilo fara badan. arrimahayga oo idil waxay ahaayeen taxta sifir, yacni arrimahayga oo idil dhulka ayay ahaayeen. qof waxaan ahaa dadka aysan qiimeyneyn, aysan ixtiraameyn, qof aan lacag haysanin, qof aan yacni dadnimada kasoo muuqanin oo dadka agtooda waxba ka ahayn ayaan ahaa, duruufaha ay haysto iyo mushkiladaha ay haysto awgeed. wuxuu yiri marka wiilkan, maadaama aan in badan maqlay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo faa'iidadiisa, waxaan bilaabay in aan tijaabiyo in ilaahay subxaanahu watacaala culaysadan igaga saaro. wuxuu yiri habeenkii markii aan seexanayo waxaan bilaabay inaan akhriyo allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammed. intaas oo keliya ayaan 100 mar dhahayaa allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammed. 100 mar ayaan dhahayaa. subaxdii markii aan soo kacani allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin ayaan iyadana 100 mar dhahayaa. intaas ayaan wuxuu yiri bilaabay inaan tijaabiyo anoo u niyeysanaya inuu alla subxaanahu watacaala faraj khayr leh igu furo. wuxuu yiri waan ku adkaystay oo waan daa'imay oo ma iga baaqan jirin. subaxda markaa soo kacana 100 mar, habeenkii markii aan sii seexanayo oo aan sariirta tagayani 100 mar oo kaliya ayaan akhrin jiray. qaabkaas ayaan u akhrin jiray. wuxuu yiri muddo kooban oo aad u yar markii aan waday ayaa habeenada ka mid ah waxaan ku riyooday suubanaheena Maxamed, nabigeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam, kii dadka ugu sharafta badnaa ayaan riyo ku arkay. runtii waa nasiib qof kasta uu heli karin. shaydaankan awood uma lahan in uu nabigeena sallallahu alayhi wasallam isku suurad akeeyo ama uu iska dhigo, oo nabiga sallallahu alayhi wasallam shaydaanka kuma dhaco in uu matalo oo uu iska dhigo ama uu xitaa riyo haddii ay tahay, shaydaanka awoodaas ma leh. wiilkan wuxuu yiri waxaan ku riyooday nabiga sallallahu alayhi wasallam. bishaarada koobaad waa midaas. wuxuu kaloo yiri
waxa uu igu yiri nabiga xifdi 10 aayad ee ugu horeyso ee suuratul kahfi. suuratul kahfi 10 aayad ee ugu horeysa xifdi. nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaan ree ku arkay, tala ayuuna isiiyay ama waana ayuu isiiyay. waxa uuna yiri 10 suurad ee ugu horeyso 10 aayad ee ugu horeyso ee suuratul kahfi xifdi. intaas ayaan ku riyoodo yiri. subaxdii markii aan soo kacaba wuxuu yiri kitaabka ayaan kala furay, waxaan bilaabay inaan xifdiyo 10 aayad ee ugu horeysa ee suuratul kahfi. wuxuu yiri ilaahay ayaa ii fududeyay, waan xifdiyay. markii aan xifdiyay ayaan waxaan isweydiiyay bal 10 aayad in aan raadiyo macnahooda iyo sabab nuzuulkooda iyo in aan baaro. wuxuu yiri waxaan ogaaday 10 aayad in ay yihiin aayado kamid ah aayadaha ka hortagayo ama difaac u ah qofka in uusan ku fidnoobin masiixu dajaalka fidnadiisa. masiixu dajaalka fidnadiisa qofka in uunan ku fidnoobin aayado muujinaya inay yihiin oo aayadaha sidaas loo akhristo. wuxuu yiri farxad kale ayaan helay oo ah in Allah subhanahu wa ta'ala aan rajeynay in uu fidnadaas iga badbaadiyo, iyo sidoo kale ilaa iyo xilligaas in aan gaari doono oo aan ilaa iyo xilligaas noolaan doono. wuxuu kaloo yiri waan sii laazimay, waan sii waday. wuxuu yiri markii ugu dambeysay waxaan gaaray heer qof walba intuu ii imaado uu ii dhaho warniyo sidaan maada ahaan jirin, maxaa noloshaadii bedelay. yacni waxaan gaaray ayuu yiri heer aan isku filnaaday oo ganacsiyo samaystay oo nolosheeda horumarsaday oo dadkii shalay hoos ii fiirin jiray aan aniga maanta hoos u fiirnaa. yacni dabaqad sare ayuu nolosha ilaahay subxaanahu wa ta'ala iga dhigay. dadkii marka waxay bilaabeen in ay ii imaadaan dadaan shalay ila hadli jirin, dad shalay ii arki jiray qof liito, maanta in ay la yaaban yihiin. yacni muddadan kooban isbedelka intaan la eg meesha uu ka imaaday. qof walba wuxuu yiri wuxuu bilaabay inuu ii imaado oo ii dhaho warniyo sirta noo sheeg, war sideesaan ku noqotay, war sidee isku bedeshay. yacni in aan noqdayba qof dadka ay isdhahaan qofkan suusaan ku noqday. waxay u maleeyaan dadka in aan waxyaalo gooni ah ama sira gooni ah sameeyay, laakiin wuxuu yiri ilaahay ayaa ilaahu wax kale ma sameynin. saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ayaan habeenkii markii aan sii seexanayna 100 marka akhrin jiray. subaxdii markii aan soo kacnay اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ayaan 100 mar dhihi jiray. sidaas oo kaliya ayaan sameeyay ayuuna Allah subhanahu wa ta'ala faraj iigu furay ina sakhiray inaan arko xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. hadda walaalaha sharafta leh, qisadaas waxay ahayd qisada koowaad ee aan idin kala wadaagayay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. qisada labaad ee aan rabo maanta in aan idin kala wadaago saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ay tahay wiilkan wuxuu yiri maalin jimca ay ahayd ayaa waxaan akhriyay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaan u akhriyay siiqatul ibraahimiyya oo ah qaabkan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وحيري مال جمعة أي تهي ayaa waxaan akhriyay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. waliba waxaan u akhriyay siiqatul ibraahimiyya oo ah qaabkan aan hadda idin akhrinayay. wuxuuna yiri waxaan akhriyay ilaa 4000 oo mar. hal maalin oo jimco ah ayaan waxaan akhriyay 4000 oo mar saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. gaar ahaan waxaan u akhriyay siiqatul ibraahimiyya. wuxuuna yiri ilaahay waxaan ku weydiisanayay arrin gooni ah, shay gooni ah ayaan Allah subhanahu wa ta'ala ku weydiisanay 4000 oo mar ayaan akhriyay. wallahi wuxuu yiri 2 maalin kadib, 2 maalin bas kadib waan helay shaygii aan Allah subhanahu wa ta'ala weydiistay. xitaa haddii aad u baahan tahay in Allah subhanahu wa ta'ala noloshaada si guud ku wanaajiyo ama haday baahi gooni ku haysato, ilaahay subhanahu wa ta'ala waad ku bari kartaa oo saliga nabiga ilaahay fadligiisa oo kugu siinaya. wiilkan hadda arrin gooni ah ayaan u baahnay oo alla weydiistay.
wuxuuna yiri saliga nabiga ilaa 4,000 oo mar ayaan gaarsiiyay ilaahayna 2 maalin kadib bas ayuu farajka igu furay. haddaba taasi waxay ahayd qisadeena labaad. qisada saddexaad ee laga arkay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, wiilkan wuxuu yiri waxaan ku dhaartay ilaahayga cirka iyo dhulka abuuray. yacni dhaarta waa uu ku ta'kiidinayaa si hadalkiisa ay dadka isdhahaan ama iska yiri waa qof ku dhaartay ilaahay magaciisa. waxa uuna yiri waxaan saliga nabiga ku arkay mucjiso lala yaabo. waxaan bilaabay ayuu yiri saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. wuxuu kaloo yiri waxaan akhrin jiray istighfaarta astaghfirullah oo kaliya ayaan dhihi jiray iyo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. labadaas oo kaliya ayaan akhrin jiray, waliba qaabkaas gaaban ayaan u akhrin jiray. kadib maxaan helay? wuxuu yiri waxaan ku helay shaqo oo shaqo la'aan ayaan ahaa. wuxuu kaloo yiri waxaan ku helay xaas wanaagsan. hadda xaas bas maaha, xaas wanaagsan ayaan ku helay ayuu yiri. sidoo kalena ilaahay waxa uu ii fududeeyay in aan gato guri. ilaahay wuxuu ii sahlay shaqo fiican oo mushaarkeeda aad iyo aad u badan yahay. kadibna waxaan guursaday xaas, waliba ilaahay xaaska wuxuu iiga dhigay xaas wanaagsan ilaa ugu dambeynna aan ka gatay guri. intaasna wuxuu yiri waxaan ku helay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad iyo istighfaarta oo aan dhihi jiray waliba astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. qaabkaas gaaban ayaan u akhrin jiray ayuu Alle subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri farajkan igu furay. haddaba saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waa khayr, waa barako, waa faa'iido fara badan. haddii aad laazinto waxaa laga yaabaa in Alle subhanahu wa ta'ala aad ku aragto xabiibkeena Maxamed sidii wiilkii aan qisada ku bilownayba uu ku arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam. run ahaantii oona ah jaanis aad iyo aad u wanaagsan. ilaahayna arrimahaaga uu kugu furfuraayo una kaaga qaadayo kurbada iyo culayska ku haysto. Alle subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa inta xanuunsan in uu xanuunka ka qaado, inta caafimaadka haysatana alxamdulillah ilaahay uu noo ziyaadi. nimcadan adaan siiyay cid kale oo na siin kartana ma lahane, ilaahay uu noo ziyaadi. walaalaha sharafta leh, muuqaalkeena maanta halkan ayuu ku egyahay. haddii aad halkan soo gaartay qaybta hoose commentiga aan ku noolayno oo ku xusno xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. muuqaalkana ka iloobin laag inaad saarto, u sheer garay walaalo kale si uga faa'iideystaan. khayrka ayaa mudan in la faafiyo. waa mahadsantihiin walaalaha sharafta leh. wassalaamu calaykum.